الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن طفيل فيرس ديالها كدو هذا برامج كيد دور ولي بسين تضواد البسون فيرس سنتها قدوميها أورو كديدو هما أبوكر ولي بنون كوريس دونه وقوتك أورو كديدو أو أنت بن شقيا هاي بداية رقم في كونفرق البلد الصومالي والسجرين هاي محمد أبوكر يعني كورينتا كدو هاي برامج كيد دور تلفزيون كدو كونفرق البلد الصومالية maxaa uu kor ankorinta ka dhawo barnaamijkii dudhor gaar ahaan telefishan koonfur galbeed Soomaaliya ku bawo adoo ka bilaabay magaalada iyo waliba ururkaada gudoomiye ku haysan bismillaahir rahmaanir rahiim axmedow eedan ka dhawo magaca wali leeyahay maxamed abuukar cali ururka horumarinta deegaanka dado ama deegaan development organization ayana gudoomiyaha eedan ka dhawo barnaamijkii dudhor anaga ka martanka eedan mahadsantiin guud ahaan TV-ga koonfur galbeed iyo maal idaacada taasoo kale adana mahadnaga eedan mahadsantahay oo qur mahadnagana fursada gaarigaada nasiidi oo noo ajibto inta uu wareysiga loogaldan koreenti ururka kunanka sababteeda bulshada koonfur galbeed si aan barato ururka dado meel lagu gaabay waa meel la jeedo ururka dado bismillaahir rahmaanir rahiim ururka dado maybe iya urur oo magaashii lamaga baahi ururka horumarinta deegaanka mayna la ku gaabay dado deegaan development organization yaleere mayna la asaasay 2019 bililihad labaatili maraasiya magaalada Baydhabo la ka asaasay mayna asaasay dhalinyaro aqoon-yahan iska jaraan gaar ahaan wal badin shawla ka baradan dalka dibadis gaarshona may la raay dalka gudaashii wal ka baradayaan islamada ahaan gaarshona isuna yoon wal ka baradayaan gudahan koonfur galbeed qayb kumada wal barashadii oo ka jaraan ururka dado waa waliba urur anteegan sidii deegaanka koonfur galbeed Soomaaliya la kormarsiifadi iyo bulshada antaba waa urur anteegu ulajeedshayna wali waaye ko deegaankii oo koonfur galbeed hay yani geek aan hayna yani sidii lagu faday bulshada hadii wal barato wala baradaas waliba marxad madaas ka jartin ugu gudubta dado dadka ka howlan ilaa 15 qof wada deeraan in badan wayba istuseena koonfur galbeed saxdii ka jarta in dan aan ka jarna bulsho ahaan deegaan ahaanba deegaanka baaxadis iyada aan bilirinta axmedow ma dareemasay inta deegaanka koonfur galbeed Soomaaliya sida lagu fadaayin hayn xagga nadaafada xagga wadooyinka dhinaca meel raayis geedo iyo geek wadanka la haay mis koonfur galbeed ka taali oo sida lagu fadaayin hayna salamada boondiyaalsha iyo soo nalka leerarka markaas magaalada meel raayis sida lagu fadaayin hayna adina wal marka bulshada kale ma dareemaysa intii mis maamul goboleedyada kale intii gaarsho may dareemaysa sirtaan oo kale hayna hooga wala taabado koromis dasheego kor deegaan ahaan noo karooyin laakiin koonfur galbeed geek waliba dareemasay si lagu faday in hayna dadona may diyaaran ata in koonfur galbeed oo geeka deegaankiisa sidii markaas horumarku bileerno tanto gudoonka deersi fadi okay ma kuliyada ma gadoomiye ururka dado saasha deegaanka ee lagu tarjumay horumarin marka ururka dado aan doona keenaga faahfaahin guud ee faahfaahinta ururka dado waliba ujeedka lan asaas iyo damaca guud oo kulay ururka dado sida sheegtay ani ujeedka lan asaasi may buwaasida horumarsi deegaanka iyo bulshada antaba damaca kuleyna wali waaye deegaan oo horumari bulshadiisna aan heelan in la hela salamada bulshadun oo in badan midabta koorka iska soo biyaasa tamyiizul unsuriya waxyaabo la yaro iska soo biyaasa in luqubaha oo nisfaquuqna bulshada gaarshay in meel raayis geeka la gacan qobada kii ko meel raay naafada la gacan qobada wal barasho oo kala hela yani dado geeka dawladda ay mafiiriyasa mayna bulshada sheegaas in deegaanka koonfur galbeed reer koonfur galbeed yuleyn ayoona meel raayis badbaadsada koran deegaankiisho meel badbaadi marka سلمنا ديجانك وحياة لو كبد بعد يوم يكون من ديجانك أحمد ما يدري مسه أنتي جيدو لهاي جيد ديجانك إن نبات جور لك صوب بهاي ميل يفهايتي أم التكايتي جيك جوان لمبدلي
may dareemase meeliyeeda inta ka noolayaan oo xayawaanaad iidan fara badan shimbirooyo kumida daanjarada kumida xayawaanaadka ugaaratida ayoon la ugaarado qarashiyo kumida ka noolayaan geek laakiin meel xarsadaa aan lahayna ama meel kooyda aan hooy aan haytaba aan lahayna geedoogaasa hatana lugooyayo may la raayso iyo uwenyin lugubow dhuhowlan bedelow oo hatana dibado lan dhoofiyow lanka gooyow lanka dhoofiyow waa lan reer koonfur galbeed elayo marka advantage oo markaas geedonin leeyna runtii malaha koobo koro laakiin iyada lan dareensanayna ma oshi yacni xakameyn in bulshada iyo wacyigelinta bulshada iyo qiimeyn u qaadaas ururka dado in geedogaasi wal turning leeyna deegaanka meel raayis sheegaas bulshada madaas ka howlanayta geed gurukaasi dawladda may codsadaas inta kula shaqeeytatana si geedaasi xaqadka gala fadeeno oo markaasi wadankan in garooga fadeen salamada bulshada iyo wacyigelin siyaasada ma jira bulsho yacni la hilmaamiyaan islaamaanti geeka mayba kumida dadkaasi macallimiinta dugsiyada quraanka oo kale ma aragaas macallin quraan geeka leey dugsi quraan macallin heblo mis macallimiinta la tababaraa leey ma aragaas laakiin ma aragaas iskool heblo tababaran qobaday iskool heblo tababaran leey marka wala dareemase koonfur galbeed antii may la raayso la xaq qaadi waxyaabo may la raayso duulaan maskaxeed qaswal fikriya wala leero anta la xaq qaadi ma in laha koonfur galbeed waxyaabo badan aan qahayti geeka ku tabahayd tusaale mayba kumid wala geek aan qahayti xoolaga aan ku hayti qahayti geeka ku tabahay hoola mis wal dayahay hoola geeka magaalada dhin walba meel aad aragto may la raayso dhax wareegayaan soo gudaasha dhax wareegayaan may dareemas anti baaba laakiin ida ku mootiyayo soo galeeban foof dhiyaayo mis aan bahayaan iyo wal aamo markaas wadan suugan online laakiin wadooyinka isku maraayano isku bari galayaan hata way kumid dayacad waa mas'uuli daro waa lanka oo xoolagaasay leh hadduu soo dareemo in la xasuusiyo ayo idanta dadka markaasay wal ku fahmeen may qiibayn ku qaaday maamulka markaasay meel ku dhisan salamada bulshada laakiin meel u baahan yahay in yana diyaar anaata bulshada kale wala helmaantiyaan mas'uuliyad gooni ku saaran in la xasuusiyo taas oo kale waxyaabo un meel lanka day oo muddo dareentay mis ururka dad aan teegin in wal ku bedel waliba dadkan oo beeraleyda oo kale beero waliba waa geeka un wala dhagan hidda aan lahayno wala un ni asteeyo beero ay hoolaba beero geegsi lagu fadaayme ma sheene madan ma sheene hido wadanka hakabadadan يعني إنها بدل فيلة إن ودنك كوين فيلة إن هي إتسمى فليال كوين فيلة لكن وقت ذي مناسب كهين سلة فضاي والمنديبة ميلك فضاي بوس كلام فضاي مجيء ولا لمباهنا يميل ديبو ما يعني صوبيان بس لانك أو مركز بيرتس فرضا لونويرة ما يلا رئيس ما يكوي بوشكي يلا ما يلا رئيس مالك سيجرجان صابون يوم ده سنروك بس بيرتسنا بيدي مثلا كتابي هذا يعني ما يلا شيء دت لانجال جرأة أو قال شيء قدو منا إن أس أري يعني يبدو صاي قال لوين ود أنا هذا ما يلا رئيس بوشك الوردي لا يعني أو بوشكم ولا أنكو قالوا ما يلا رئيس ولا يرسكو أول بن هاين هتا إن قال شيء أنكو تبايا دري مس مركا بوشي دي كونفرق بيت ما دون إيران ولا بوا بوش دوران لا قاعد ما دون لأن ولا بوا لكن كي أو مركزي أفكيكو رومي لما بيروي ولا كتابي حقيقتي سلمدا ميلو كتابين حولاي واني جيك حولا سدل فداي ما فايدة سداي marka dado wayba diyaaran inta bulshada waa igelin in walba inta deersada ma santa ururka dado bulshada oo ka nool magaalada Beedhabo isin ku shaqeeyay tan hata isin ku dhaadhaasay isin ku aamin inta beero iyo walaal isdad ku ay jiraan isin ku aamin bulshada isin shaqeeyay amadow idan ma santo bulshada ka nool koonfur galbeed Soomaaliya badin sho intii nukologni geeklan walba ku basinyi mis ogi ogi marxaladda geeka may baa deegaan koonfur galbeedka jar in xoolay la dayaxay wal ogi in wadaniid wadanka intaan wal ogi marka geeka dhalinyaro oo deegaanka kiisho sa volunteer an ka shaqeeyaan oo yani wal kala dhaqaale raadis aan hayn madad aragto oo deegaankan oo shaqeeyna bulshada horumarsiyaana leh ma dareemaysa meel raylan oo isku jar lan oo way baa kala ku aamino laakiin antiyo hatanin moojiyaan waliba dadka raayan way baa dad ogi kala baahnaa etiin en garaba sansiyan heel ihooba way baa diyaarsan laana barnaamijkan ay ku aajisnay en xiisa la ilaa nagana in badan raayan laakiin insha Allah oon way baan sheegan wal xiisa inta injarna anti deegaanka way baa markaas saasaan sheegana deegaanka marxaladda inta uu gudabo i bulshahaanba inuu hegan ana diyaaran wana lunku aajis doon xalay lama hadana kitaabta ururka dado
meelo muhiimka inka isku shaqeeyaan inta axmedow ururka dado yani inta la dhisay iyo dhaxdan waliba aan suurtagalay intii meel raayso ku dhisama deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya aan ku horeeyay gobolka Shabeellada Hoose oo degmada Marka yasa toos aan ku dhismay salamada deegaanada oo meel raayso gobolka Baay qasadheer oo kale soo meel wanaagsan aan ku dhisay xafiiska kaleey salamada meel raayso Diinsoor xafiiska kaleey buraha kaba dhalinyarada tiimayba maamulkii ma dhisna laakiin dhalinyaro heegan ee markaas iyo meel raayso intii ururka sii wad diyaaran ay meel raay roogto buraha kaba saasan ku dhisanyi may ku dhisanyaa meesha birdaal fade dhalinyarada markaas ay sugoonay lan wada arag kulaman fadheedan wakiilo ku rooga laakiin maamulkii si toos ma ku dhisna laakiin deeri ma santa ma ku su'aalan kuweydii way baaytay meelo isku shaqeeyo ururku meena wala isku shaqeeyo okay ma ku mid ah sida oo nadaafada magaalada beero inta ku shaqeeyo ururka horumarinta deegaanka wali ku shaqeeyay kaliya deegaanka hadii la ka reebo dareemaysa baahidis intii biliiranta ko dado deegaanka nadaafada hoos galaas caafimaadka hoos galay walbarashada hoos galaas deegaanka hoos galay beero hoos galaas sida deegaanka la ka ilaaliyay fadhidin walba dado diyaaran ay isku shaqeey ma santa ururka dado antus jaray jarana oo tababar meesha seminaaro oo isan qabatan bulshada oo sin ku ogolaadeen ururka dado runtii antiis markaas dhisanay jaran tababaro oo kale markaas una tababar ma laakiin mayba soo beenay dood wadaag oo kale soo beenay una bulshada dood wadaana una ka qabadaan ilaa iyo meel raayso saddex qof oo kale iyo marta in ka weelni dadka ku faa'iideysan waxyaabo lagu hadlayn waliba ay sida qodob gabyaalada dhibaatada kaleeto meel raayso bulshada koonfur galbeed iyo deegaanada guud ahaan qabyaalada dhibaatada leh iyo advantage ka jira qabiilays mina qabiil feelay aad walis walaalado koro ilaahay baa saas may boonin ka banaay ayadu quraan ba ilaahay nin sheegay in oo meel raayso qabiilka la taarafo yeelan ku tirgali laakiin qabiilaysi marka qabiilaysigaasi saameynta biliran bulshada ka haya faahfaahin lagu siiyay lan sheekh caalime walbadan ku giya marto ku hay sheegawes lan kasaw saas oo kale mayba ku hadalaanay bulshadu markaas inuu ku ay gilaanay misalan sheegay dowladagaas ku socotay wala la ero meel raayso roobabkan daadadka reebayaan ya bulshada meel raaysadii markaas ku kortaga fadeen isyo markaas hoobi qobsada sin isku ilaaliyo fadeen oo meel raayso iyo meel raay bulshada ka deersaani salamada hatana may lagu hadlayo mis qodob saddex nin hay faydhor deegaanka sila ka ilaaliyo fadeen waa salam sheekh soo martanin ku hayti yado qodobka saddexna nin ku hay Xasan Bile lan oo awayaan siyaasi koonfur galbeed reer koonfur galbeed iyo soo meel raaytana maamul jaamacadeed ayana martanin ku hay bulshada inta badan markaa ku qeyb galeen ku faa'iideysay xitaa su'aalaha la isku weydiiyay sameynay bulshada qabiilada oo ku bata deegaan iyo ka ilaalinayaan salamada hatan oo ku gudubaan hadii fatahaad oo kale ku wajahada ama fatahaad qobsadana hatana roobabka saameynta biliran fatahaad ka raabana hatan si lagu gudubi lahay okay ma ururku dado amana la aasaasay meegaanada ururka dado way bala aasaasay 2009 bililiha labatili maraasay la aasaasay alamsar sheena wala badiyayaan bili siyeedad oo 9 maraas iyo magaalada Baydhabo ka dhig wali jaray marka 4 bilood alamsarka dhatan iyo jar 4 bilood laakiin aas iyo maamul lan magaca gudoomiye magacaawshi mayba lukrooyli bilood idan ma santa ururka dado way ba urur oo inta badan oo dhufshin arag marka ururka dado intus bilood tirsan antus litasbado dhatuumeen qabsan ururka dado walaal qabsan dad hal lamin ururka dado ma sha Allah antus dhisanyi wala taabado korona macquulayaan qabsoo meero korna iyadoo geedka dadka markaas ururka wadiba dad oo meel raayis in badan shaqooyin saasaysan haysana balse laakiin saas taatan iyo bulshadiyo kaaladayaan dhinu walba hadii aad fadhi maamul hadii aad fadhi dhinu walba iyo kaaladayaan way baan qabsoo ururka dado September deetiya wali baan qabsoo meentiyoonay dhaqanka bandhigan iyadoo ka bandhigan meel raayso walba hidaay dhaqan hayn markaas la isticmaalo koonfur galbeed anka ka hayti iyo soo karsadayaan food and soup and door goorisadaan
koron mise ambuul lama siisan kasaw mayba iyo suubiyaano babuka ama sadaanga lama siisan kasaw meeli hatana laka suubi odayaal lan weeri dharka markaasi dadka meel raay barnaamijka wadaan mise teamka dado ma hayn dharo hidaaya dhaqan iyo hirin yahay waa qiibwiina markaas ku qaadan ero korna dado intii aan bandhigta dhaqankii yadana ka horeeytii wal qobad toobaleera qodobka higa oo markaas soo biday dada waliba October 28 yamay baan qabsoontay in qiibiyan October may dareemas inta roobab jari gobab jari dad oo walaalada iyo markaas bay dhoo ka hareeraysan ya waliba deersiina balaas iyo ku beerta iyadoo hatana kaaladaan bulshada qiibasho shaldoon ilaa iyo 700 qoys ay deersiyan November 30 may baan qabsoomay ururka dado in iyo meel raayis walaadasho dad oo yani ka dhigan dhaqankii madan saas ka leh may suubiyana dadkaasi wal oo deegaanka aan ka hay oo waan la kasaay may kumid may suubiyana salagi la ka tukaday oo aw ku suubiyaan babiski aw ku suubiyaan waxyaabo kasta oo lagu suubiyo aw taasi ya meel raayis suubiyaan iyo hatana magaalada ka nagayaan safariyaan يعني نول كفاية سيدي بعيونكم أوكل يعني إذا يجي كوكيرم تتكاسي ما يبقى ديرسيدي أو سيتمي قفاية هاي أو برامج كاسي ودان يو قربنا عن هاي سنة لكن أروك ده بوجدي أو يا ميل الرئيس إن ديرسي أو تاس ميل الرئيس بوشها عن كساني برسي حتنا ولا لين أن سيدا سبب ما سرني حتنا أو تمر قان قبسي هذا الإنجيل مركا أو تاسي والcontribution ونسكدر أنا يعني كجيني وأنا رنتي إذا نين فرحت جلنا تكاس ولا بهاي دات أو انتجن mar walbana hegan ee dhaqankiisho markaas iyo kormeersi fadan salamada December taadana kin sheegay doodwadaagii qowani doodwadaagaas oo meel raayis una bulshada aan ku faa'iideeyana saameynta qabyaalada kala hayti salamada meel raayis roobabka daadadka sheenayaan si loo gudub lahayd si loo kortaga lahayd iyo environmental sanitation caafimaad nadaafada deegaanka oo kale sida meel raayis lanka ilaali lahayd deegaanka iyadoo martan ka hayaan dad aqoon-yahan ee kumada sheeg awees kumada sheeg sanbel ustaad sanbel yani lan oo siyaasi ah aan ka koonfur galbeed jaamacadda maamulka iyo doctoressa Saleema Sheekh Shucayb ururka dado December 2019 kama in suurta galay in dhalinyarada markaas fadaasi in dado ka beerta xaflad aan suubiyan soo dhaweeyay aan suubiyan xaflad soo dhaweeyay iyadoo meel raayis tixgeliyaan dhalinyarada badana baahan hay'ad dado intii ku shaqeeyaan ee ka dhawaayaan okay ma gudoomiye ma santay ururka dado anta kortay jarana meelis booqtan sida beero ama la isna ku soo beeysan inta beero nabad guuran isa ka waataysa ururka dado markii booqashadiis koowaad mayba ka soo beeyay meel raayis garbooda ka saasay kaale jaran ha eediyad jaran booqashada ka soo beeyay jar beero oo seeni agaarka baydhabo beeraha kala reeysan seeni inkastoo booqashada ka horeeyay ururka soo beeyay ila baydhabo yes meel raayis hindindhan ka saadi ila baydhabo meelaha talanka soo garbooda garbooda ma dareemase ila baydhabo ila reewana meelanka faylo markaas ka dhalinyarada reer koonfur galbeed dalid dibid meelahan dabal bahayaan inta iyo abo sharo iyo la mukay email badan la sheegay laakiin garbooda qiibiyoon ku meelas biyooga si ka gudubayaan ururka dado qorshe ya may lahay an diyaariyay mise ku fikiray in uu biyoon la reebo karo in biyo meel la keedii karo wal markaasi uu tawartaan markaas hub la fiirin in diirnay laakiin hamigaan geliyaan si meel raaylan ku guduba talamada marka beero ururka dada su'aalaha wali haytay beero oo kala seeday ha seeni beero oo booqasho ka soo bini oo hatta dadka markaas beeraleyda oo meelaha sayr roogan beerasho hoolasho wadan beerto falayaan oo falowkan mar falowsho kulu qiib gaadano beero la falaan hoolona hakat ugu giliyaan waan ka wacyi geliyaan in beerogon iyo meel joogtayaan abuuran faladan hatana goosadaan magaalada la galaan baan sakeedisadaan ka wacyi geliyaan dhin walba ida ma santa marka ururka dado runtii suuqyada way sheegeen dadka magaalada baydhabo runtii gobolka bay maamulka xarunta baydhabo magaalada baydhabo ku jira maamul oo dawladaha hoose ururka dado dawladaha hoose sanad shaqeeya maadaama oo isin sheegeen ma fuduq shaqeeysan maamulka dawladaha hoose degmada baydhabo inuu qeyb nadaafad ku shaqeeya tarka sanad shaqeeysan si maamulka ma sha Allah waa su'aal faylo
runtii koonfur galbeed waliba ku dhisana maamul salamada ma jira maamulo dowladda hoose oo igmidi hatana nadaafada deegaanka igmidi ununa dadkaas dabcan inta ka hormay la raayso dadka igmidi misla fadhina la hakin haddii aad fadhi maamulka degmada haddii aad fadhi wada fadheeni barnaamijkan qiibiina meel waa taatan oo saacidahay dhiirigelin waliba hatana noo siihay gudoomiyaha arrimaha bulshada oo kale ya in badan hata wada shaqeyn lena una oo meel la raayso fadaan hatana anti xaafadaha magaalada Baydhabo iyo salamada gudahan koonfur galbeed degmooyinsha maamulsho kulamaad la wada qaadana sida deegaankan la badbaadiyo lahayd ururada ka jira magaalada Baydhabo ma gudoomiye ururka dado ururada ku dhisan koonfur galbeed gudahan magaalada Baydhabo ku dhisan waliba ku duwan yimaada deegaanada ay isku wada dhisan saas oo kale waxyaabo markaas iyo ururada bulshada kan in la midayo aan ka laakiin mid ku duwan yihiin walba deegaanka la ka soo biyo ururka dado ya heegan iyada ku duwan yihiin walba deegaanka la ka soo biyo koonfur galbeed yani ma waan basan waliba iyo bulshada baata ilaa ma waan basan waliba horumarinta deegaanka iyo bulshada markaas deegaanka ururada bulshada kula mid in ka samagna ununa marka maadaama ururada badan yihiin may fadaane in ururadaas la fadheena urur qorshe degsade qorshagaas meel ka yaabay una anfusaay korna ama garabka sii korna yoona fursad mis neefusay korna ununa garab hadii la geeg wala soobi ururada dan sono mis geeg wala ngobadayna maaga bis haysan iyo waliba diyaar in dado in uu shata dhagaajo oo la shaqeey okay gabagabadii marka bulshada koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan barnaamijka dhiro ma baagan taraas waa mid ka dardaarmay bulshada meel walba roog reer koonfur galbeed ma in sheegay qodob koowaad oo koow in horta dhaqankii koonfur galbeed laga kasaay in iyo meel raayso meel walba roogan iyo noolayaan haddii aad fadhi afki haddii aad fadhi labiski dhaqankii haddii aad fadhi meel raayso wala madaas koonfur galbeed aan ka bahay tay misal laga kasaay soorti hada dhina wala beeraha ka bahayaan iyo xanaanada hooleyntii in horta joogteeno adkeeyaan oo ilaaliyaan waa qodobka koowaad tan lamaad dadka beeraleyda ayaa meel raayso hoodii fiiran dad beeraley iyo ila hadal fadhe dadka beeraleyda ma in sheegay antigeeka koonfur galbeed geeka dadka ka noolamaysa laka magaca koonfur galbeed hoolar laato in isin atin waayo isin beero meel raayis ka abuurasan misgeeda ka abuurasan diinta jirta ku abuurasan galeyta ka abuurasan walba deegaanka aan baahnayn aan ka abuurasan ma isan laha marka antu ku nijabna oo mar walba diyaar aan haataan oo meel raayis xasaartan waxyaabo markaas deegaanka soo baahan yihiin xasaarasan nijab kala siin ka dhiine dadka fadayaan anti siin godan beerasay isku diidan ama fursad aan seena beerogin ilaahin aamintan beerogin si hore lan ka saayba bakaaroin soobsatan misgeeda bakaar galataano oo abaari walaasay ilaahay siin ku sakhira heegan galan si beerogin meel raayis inta bad fadin xoolayn hatan ahanaysa fadin salamada dadka siyaasiyiinta oo koonfur galbeed ka noolaan iyo bulshada intii dhan wali indiyana baaga in ka diray geeka haddii una isticmaalan waxyaabo dibadana nin ku sheeni saata baasad iyo gemidida oo kale iyo wal gasacdaysan isticmaalan runtii oo dhaqaale ka biyana ma in badan ni jabkoona karidaane dadka oo beeraleyda mise dadka koonfur galbeed diyaaran dhaqan joonta muuja ama dadka beeraley beerasho wala ka baahan saaradaan in badan ni jab karidaan waa xaqiiqtan bal la ogaadiyo haddii geeg una misgeed ku tabno ama lanka misgeed abuurday oo soo gasheen lama kunshin lagu siiyo oo shoodi oo bariis ama shoodi oo kiilada baasteen beesa oo taatan laga siiyo oo runtii nijab goona dad kalidaas marka waa in sheegay anti wala markaasay dhaqaalay aan ku baaha badanaay lanka beeraley beero abuuray aan ku baaha badanaay lanka dibadda markaasay ruuad ku gaadayta iyo dhaqaalay ad deegaankii ka kahayti oo dibadda jeehayd ya meel raayis nasiib dore meelana marka deegaanka kiika wala ka bahi bulshada ka dhawaay dadka banaanka koy soora ka dhawaay bongdub koron soobi hal dareemay dhaqan koonfurga wala aan ka soorta lan hiisoy wanta soortan ku saar marka dadka in badan oo meel raayis martada soorayano mise martada meero banaanka koytina taas kala dardaarmay insha Allah taala bulshada kale oo qeybasha doon may baleha in deegaanka la wada jeesad in bulshada la wada jeesad wala ku bedel marxad una ka jaran
deegaanka badbaadi in baahanyi xoolaha deegaanka rogaan ilaali gooni in baahanyi un ankanan deegaankii ka nadaafadiisa dhin walba geedoon dhuxlaysiga laga soo biyaw oo yacni banaanka lan dhoofiyaw in oo advantage aan lahayne disadvantage maahine wal faa'iido la rabo in ku helaan faa'iido daro maahine in may la ra'iisun ogaataan badbaadsan wala una lana haddii geedka dhaganka keekaan iyo wala una lana ilaalisan runtii may naqdaan bulsho oo yacni geedka fayloon markaasi diyaaran in hor hawlna la xisaabto ma koreen naqdaan exactly marka may lana bulshadii dhagankiisa ku tabmay dhakanta bulshada wal dhunti oo kale am wal burburti mar walba una dhankii kan ka teegnan may bana dad hoogano may la raayis mar walba diyaaran in ay soobsadaan ya naqdaan marka may lana ururada bulshada raydka koonfur galbeedka nool ganacsatada siyaasiyiinta iyo deegaankiisho daneen gooneysayaan iyo deegaankiisho nadaafadiisa ku fikiraan iyo deegaankiisho horumarshay ku fikiraan walba deegaanka feeleen in la kooyaan salamada walax deegaanka usuleeyo tusaale xoolay oo kale iyo beerogi oo kale iyo yoona daneen gooni la siiyo la fiiriyo yani la qiimay waxyaabaha oo banaanka nin ku sheeno iyo lis barbar dhig horto lis barbar dhig geemidi inta la saar baastada inta la saar bariis inta la saar salamada digirti iyo sambukada iyo bahalibay boodida iyo bogedida iyo walaayba digir madaasalata okay galeyti oo kale salamada hatana misgeedi oo kale yaan miisaan la saar tan maalinta mise tamaanka baro isticmaal tan la isticmaal tifa idil markan adiba dareemas may ogaadase wala deegaanka ka bahaw iyo xoolaha iyo wala markaasay oo deegaanka leeyo oo subagid horta xoola fiiri hori meel badan ka say Ahmed koonfur galbeed ma hayna dad oo lamadan shay xoola iyo beero aaminsan oo ilaashan aaminsan hayn meel ka fikiray maadaama marxaladdan koonfur galbeed oo walba inay baahan sar ku bedelo kor aqabad fikiray dadkii ma qaadana duulaan maskaxda ka qaadan dadkii maadaama maskaxda kula dagalan wala hay'adooda kuwa aragaasa ma dareemasay anti way badnay kula dagaalamay marka meelana koonfur galbeed dad shay isoo doonta insha Allah taala insan hegan galan sida deegaankii badbaasada fadan oo afshiga badbaasada fadan dhin walba marka eedeedan ma hasantiin waa ka maxaa uu ku rasaasoo kale oo eedankan kama xanaar safeelada fursadan sida waana ninku ajiibsan waraagsan kiilowalana guud ahaan firsada way baan taa gabagabeynaa barnaamijkii dudhor oo isin ku firsada telefishinka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo toddobaadka martan kahay maxamed abuukur oo gudoomiyaha ururka dedo oo ku shaqeeya koonfur galbeed ee Soomaaliya barnaamijkan waxaan buuleeyaa simadiraysa inta barnaamijkan kale hidore ونريد كلمان هذا السوق طبعا السياسة نتكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.